بسم الله السلام عليكم مالين وناكسن هبين وناكسن هاد بكايد انتهي إن شاء الله عاوة حنسلاقي دونا برنامج شير وكسابسن في اس كود ان في اس كود تكس إديتر مايكروسوفت أي سميسي أما أيضا مفيديس أي leedahay وان one of the best haddii uusan ahayn midka ugu fiican waa mid kamid ah kuwa ugu fiican text editor-da text editor-du way badan yihiin sida saa hor usoo sheegnay Sublime Text brackets VS Code-kan IntelliJ Dev C++ kan isticmaalin inkastoo qaarkood ay ku kala duwan yihiin oo luqadaha loo isticmaali karo laakiin haddana waxaa fara badan kuwa multiga oo luqad walba aad u isticmaali kartid sida Sublime Text oo ah mid kamid ah kuwa aan ugu jeclahay aniga way badan yihiin oo ma xadidin waxaasi laakiin VS Code waa mid kamid ah kuwa ugu fiican at least qof walba ee developer ah siiba kuwa applicationada ama website-yada sameeyaan waa ay isticmaalaan VS Code wax kalena ma ahan VS Code marka hore waa open source oo wuxuu leeyahay tools ama extensions fara badan oo qof walba uu intuu diyaariyay uu ku soo dari karo insha Allah caawana diiradda waxaan ku saari doonaa extensionskaasi oo ah kuwa ugu muhiimsan inkastoo ay badan yihiin laga yaabo inaa mustaqbalka dambe qayb kale aan kasoo sameyn uu series noqdo laakiin caawa kuwa ugu muhiimsan 5 ama 6 ayaan diiradda ku saari doonaa insha Allah let's get to it marka extension VS Code si aad ugu soo darsid ama isaga saartid waxaad ku dhufan doontaa halkaas ay ku qoran tahay icon-kaasi oo haddii muuska aad dul saarto waxaad arki kartaa extensions control shift x noo kusoo furi kartaa ama icon-ka ayaad click ku siinaysaa extension number 1 wuxuu inoo noqon doonaa brackets Bayer Chlorizer waa kaasa logiisa iska fiiri labada waa ay jiraan midkan kalaasna waa custom laakiin midkan ayaa fiican oo midkaad ku shubato dib ma leh extension si aad ugu shubato ama VS Code-ka aad ugu install gareyso halkan hadda aniga ay ugu qoran tahay uninstall aan hore u dejistay oo sidaas ay uninstall ugu qoran tahay adiga waxay kugu qornaa doonto haddii hore aadan ugu shubin install tusaale camal aniga hadda waan iska dejinaynaa oo uninstall ayaan dhahay waxaa arki kartaa inay ugu qoran tahay install oo marka kugu horeysa sidaas ayaa ahaan doontaa halkaas install ku qoran tahay baad ku dhufan doontaa waa kaas sidaad arkaysaan automatic waa la install gareeyay oo kaasi sidaas ay computerkayga ugu jira mid walba ee kamid ahna sidaas ayuu noqon doonaa marka waan ka socon doonaa aniga intooda badan waa install gareysiin adiguna halkaas baad ku dhufan doontaa okay intaasi waa isla fahanay ayaan filaayadana brackets Bayer Chlorizer muxuu ku qabanaa haddaba sida loogadiisa aad ka arki doonto marka aan joognay AVC plus qaybihii marka aan soo sameynayni waxaad ogeedeen inay halkan aan isticmaali jirnay waxyaabo badan brackets ama curly braces fara badan iska dhex furfuran oo mid walba midka kale uu ka dhex furan yahay haddii kana anagna hadkan waxaa parent u kan midkan waxaa parent u sii midkaas kale midkan waxaa parent u sii midkaas kale oo sidaas ayay ku soconayaan oo midkan hadda waxaa parent u sii midkan ilaa iyo midka uu horiyaan imaanay waxaan iska dhex furan marka aan inta joogno sida aad arkaysid inkastoo Dev C++ kan uu color ku saaray ama highlight uu ku saaray haddana haddii Sublime Text meelahaas aad joogtid ama brackets waxa laga yaabaa inkastoo qaarkood calaamad ay saarayaan laakiin wareer ayaa markaas ka imaan kara oo anaga hadda comment camal isticmaalayni aan ku calaamadeynin laakiin haddii aad VS Code isticmaalaysid waxaas ma jiri doonaan oo just extension-kan ayaad u baahan tahay tusaale camal wax yar haddii aan fiirin hadda soo u shaqeynay bal CSS-ka camal nagey halkan waxaa arki kartaa inkastoo aan badani maybe mid ayaan hadda ka dhex furinay halkan mid kale ka sii furo waxaad arki kartaa in mid walba aan furno color gooni la siinayo marka uu furmayo iyo halka uu ka soo xirmayo oo tusaale camal kan hadda wuxuu ka xirmaa halkaasi waa arkaysaa color yar jaalo ayaa la siiyey midkan waa arkaysaa pink ayaa la siiyey kan waa arkaysaa light blue camal la siiyey halkan laakiin waxaad arki kartaa inuu midkii kala soo noqdo taasina waxaa keenaysa brackets Bayer Chlorizer wuxuu ku imaadaa just 3 colors laakiin haddii aad rabtid adiga setting gal waad bedelan kartaa oo kalaradiisa waad bedelan kartaa kalar kale oo dheeri waad ku darsan kartaa kan marka wuxuu ka saacidi karaa waxaan faraha badan
meesha ay ka xirmayaan iyo meesha uu ka furmaayo mid walba inaad just by taking one loop inaad hore ka fahantid. That takes us to extension number 2. asana wuxuu noqon doonaa Britia code formatter. asana waa kaasa logiis iska fiiri kan muxuu kuu qaban doonaa just by practice aan isku tusno halkaan camal waxaa inoo aala code yar oo HTML ah. waxaan camal hadda waxaan sameyneynaa inaan isku qasno camal hal mir halkaas kii neefkani dib u celi kan halkaas kii waxaad dareemi kartaa waxaan hadda inaan isku qasni sax oo alignmentigii iyo wixii ay lahaayeen inaan zaid isku qasniyo dareemi kartaa sida aan ka yeelnay. yes waxaan sameyneynaa bal halkan waxa dhici doona ila fiiri control s ama file for si aad u wada aragtaan save dheh. xarki kartaan wixii dhan waa la soo celiyay nidaam kan intaas ayuu kuu qaban doonaa oo alignmentiga codekaada just marka aad save dhahda hore ayaa laga habeyn doonaa. okay extension number 3 wuxuu noqon doonaa auto save on window change. asana lawadiis iska fiiri kan muxuu kuu qaban doonaa asana practice aan isku tusino wax yar hal mar website-kan aan joognay ayaan rangareyneynaa waa soo rangareyn waa kana waxaa arki kartaan halkan camal wax yar hello I am meesha aad arkaysaan waxaa ku jirta I am full uma qorna sida aad arkaysaan waxaa ku jirta calaamadii hyphen oo abbreviation ku tusaysa wixii la soo gaabayay. tusaale camal meeshaas ayaan bedeli doonaa wax yar bal ila fiiriya aawi waatana meesha abbreviation oo gaabsaneed I am of full caadi ayaan ka dhigaynaa bal waxa dhici doona fiiri maxaa arkaysaan xag ma soo sifneen wax sif amaan dhihin waan ka soo tagay bis windowgii kale marka aan imaaday refresh haddii aad dhahdid sif uma baahna. tusaale camal si aan mar kale u aragna halkan camal waxaan ku diraynaa bal engineer ayaan ku diraynaa wax sifa ma dhihine marka halkan aan imaano waxaa arki kartaa waxba laguma soo dirin sax bal refresh aan dhahna maxaa arkaysaan haddii aan soo kabo kan wuxuu kuu qaban doonaa marka extensionkani marka windowgan aad ka tagtid codekaada automatic ayaa loo save gareyn doonaa oo uma baahnid mar walba inaad save ama file aad save gareyd ama control s aad taabatid uma baahnid by default waa la save gareyn doonaa haddii shaashadani aad ka tagtid mar walba shaashadan meeshaad doonto tag shaashadan haddii mar aad bedesho automatic codekaasi waa la save gareyn doonaa. extension number 3 oo auto save on window change asana halkaas ayaan ugu gudbaynaa. extension number 4 asana wuxuu noqon doonaa inta laba xaba ayaan isdul saaraynaa hal mar waxay noqon doonaa midka ugu horeeya ah oo auto rename tag ah iyo sidoo kale auto close tag labadaas ayaan israaci doonaa maadaama in badan isku shaqo ay yihiin ayagana maxay qabanayaan bal aan isla aragno. halkan camal ninkeen halkan tusaale camal waxaa ka furaynaa div waxaa arkaysaan by automatic waa la soo xiraa marka aan inter aan dhahay div kaas waxaa kuu qabanaya auto close tag ayaa kuu qabanaya extensionkaasi ah. auto rename asna muxuu qabanaya aan isla aragno divkana waxaan ka dhigaa hadda bal fiiri h2 ayaan ka dhigaa waxaa arkaysaa automatic waa la bedelaa iyadan tusaale camal hadda meeshan section ay ku qoran tahay haddii aan ka dhigo h2 dheh waxaad arki kartaa automatic iyadan waa la bedelay oo taagani haddii midkiis hore aad bedeshid midka meesha uu kasoo xirmayn waa la bedeli doonaa. extension number 4 asan intaas ayaan ugu bixinaa. sidoo kale waxaan eegaynaa extension number 5 oo ah midkii u dambeeyay noqon doono waa css formatter asana kan waa midkii hore camal Britia code formatter kasoo kaashadii aad ku shubatid inta kale kuu shaqayn doonaan asan laakiin waa very important waasina tusaale camal css haddii aan tagno css kan camal haddii aan tagno asana sidoo kale waxaan sameyneynaa waxa ayaan isku qasaynaa tusaale camalkaas halkaas enter soo dheh midkaasi kale halkaas gey kan camal asana halkaas gey waxaan sameyneynaa save markaan aan control s automatic asana waa la habeyn doonaa oo kan wuxuu qaas u yahay css oo keliya kii horena
waa HTML iyo waxyaabaha fara badan kaas collection ayuu ahaa oo multi ayuu ahaa kana CSS ayuu qaas u yahay. insha Allah casharkeeni aan u helini top extensionska VS Code intaas ayaan kusoo koobi doonaa. waa ay badan yihiin intaan kale ma ahan kuwa kale fara badan ayaa jira, waxaana macquul ah inaan qayb kale aan ka sameyno oo taxan u noqdo isaga naftiisa. laakiin shantani ama lixdani haddii aan dhahno labadii auto rename iyo auto close tag aan kala xisaabino, waxaan isleeyahay waa kuwa ugu muhiimsan ee qof waliba VS Code isticmaalayo inuu ku shubto ay tahay. haddii hore aadan ugu shubinin hadda ku shubo, waayo wax badan ayay ka saacidi doonaan sida bracket colorizer oo bilaha meesha braceska meelaha curly braceska meelaha ay ka xirmayaan meelaha ay kasoo furmayaan, sida British formatterka oo koodkaada marka aad save dhahdo asaga alignmentiga uu isaxo. waxaas camal in badan way ku caawinayaan. sida auto save ka camnaanta mar walba meeshii control s ama file software save aad dhihilaad waad ka tegaysaa oo window marka aad bedesho shaashad kale aad hore lagu save gareynaya koodkaada. waxyaabahaasi wax badan ayay ka saacidi doonaan insha Allah. waana rajeynaa inaad at least time saving aad ka heli doontid. marka inta aan mar kale dib ugu kulmi doono, wassalaamu calaykum. keep coding.